ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إخوتي الأعزاء، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، إلهي سبحانه وتعالى وحنا ليه ولا ليالو كتاب كيس كريم كاولو وشيئا. ومن أحسن قولا منك ما هذا الوناكسلو ممن دعا إلى الله منك إلهي دتك وغيري. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله منك ما هذا الوناكسلو وهذا الكيس كما توصنو وكما حقصنو ممن دعا إلى الله منك أما قفك خيرك إيا وناك دتك وغيري إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، إلى توحيده وحسن العمل. إلى توحيد وناكسن لإماته عمل كاغنا أدهجاجسو وإلهي سبحانه وتعالى سوى ناكسن أدنفتا له وحرتوي منك أوي يدتك وعمل صالحا هدنا عمل وناكسن كدري qofku hadduu asagu khayrka sheegayo laakiin uusan camal falaynin faa'iido ma leh. waciid daran baa ku soo arooray ninka wanaagga iyo khayrka dadka ugu yeerayo wa camila saalixan camal wanaagsanna sameeyo wa qaala innanii min almuslimiin oo weliba yidhaahdo anigu muslimiintaan ka mid ahay, dadka ilaahay u hoggaansamay oo ilaahay adeecay baan ka mid ahay ninka yidhaahdo ninkaas ninna kama hadal fiicnaba ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. إلهي سبحانه وتعالى آياتك لوحو كليه سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك وددي سددك ووير النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه بالحكمة والموعظة الحسنة. سحكمة أذيك وكل هاني أسلوب وناكسن والموعظة الحسنة موعظة وناكسن oo wanaagga dadka aad ku farayso xumaantana aad uga reebayso ka dadka ugu yeer baa Ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala. qofku markuu khayrka ugu yeerayo dadka wanaagga uu farayo usluub wanaagsan baa la rabaa inuu sameeyo, naftiisana inuu wanaajiyo la doonaya oo wadada Ilaahay oo toosan waa asagu ku amal falo. Abu Dharr al-Ghafari saxaabiga la yiraahdo yaa waxa laga wariyay radiyallahu anhu qaal أوصاني خليلي ب4 كلمات هن إلي أحب من الدنيا وما فيها. وحلي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه خليل كي يجب أي دردار ميبوري صلوات الله وسلامه عليه نبي محمد وي ب4 كلمات أفر كلمة يدردار مي هن إلي أحب من الدنيا وما فيها. أفرتا كلمة النبي يدردار مي waxaan ka jeclahay buuri adduunyo iyo wixii dhex yaalo dhan baan ka jeclahay, maalkeeda iyo mulkigeedaba waan ka jeclahay. afartaa kalimaan ka jeclahay. qaala li nabigu wuxuu ii yiri buu yiri axkimi safiinata fa ina albahra camiiq wastakthir الzaada fa ina safara طawiil wakhafif dahraka fa ina alcaqabata ka'uud وأخلص العمل فإن الناقد بصير. نبي عليه الصلاة والسلام وحو يري أحكم السفينة وردونت هجاجي بوردونت هجاجي أبو ذر فإن البحر عميق بدل مرة يوابد قده دو آدوه هاي خطر ويا إن لقو قرقومه دون وناكسن سميسو. السفينة هي العمل الصالح. قفكم مؤمن كأدونت وكوكد بيو ومصائبته هي بلايده وكجبد بعده وحوي هي العمل الصالح. سفينتك إلى دار الآخرة حتى تنتهي إلى جنة ربك سبحانه وتعالى. عملك صالحة هي خيرك إنات سميسوي دونت أتكو قد بيسو أضرضها إلهي هي جنتك قارس دونت هذا وناجب ورنبو عملك في عنو صالحة وناجب. واستكثر الزاد ورزادك بطسو انت هذا الدنيا جوكتو فإن سفر طويل سفرك كادم بيو السفر إلى الآخرة سفرك لو جيدة الآخرة هو سفر آد أردير زادك بطسو ينكو يراني
berri qiyaamaha markii la tago wax walba oo dadaal ahoo samaynaysa waa kugu yaraanaysa. maxaan u badin waaye ummaad leedahay saacaadka ku dhaafay ee bilaa camalka kugu dhaafay maxaan uga faa'iidaysan waaye baad leedahay waad shallaayaysaa w wakhafif dahraka fa ina alcaqabata ka'uud dhabarkaaga fududee waxyaalaha lagugu yeelanaye qaraamaadka ah ama madaalimta laku fuulayso iyo waxa lagugu leeyahay iska yaree fa ina alcaqabata ka'uud jiir adag baa la marayaa waa siraadka wey siraadku waa jiir adag walale ninkii ilaahay gudbiyo nasiib buu leeyahay waa jid adag oo lagu tilmaamay khatar ah wuxuu ku yaallaa calaa dahri jahannamo korkeeduu sidaa u saaran yahay calaa xaafatayhi kalaaliib labada dhinac waxaa ka jira biro sidaa usoo qalqalloocan oo dadka daqfayo yaqdifu nnaasa biacmaalihim dadkay dafayaan camalkoodi nin walba camalkiisi xumaa nooca uu ahaa unbay biruhu ku qabanayaan marka siraadkaas ninkii maro ee gudbo jannada ayuu gelayaa geeskiisa xagga jannaduu ku yaallaa xawlka nabigana waa kasii cabayaa qofkaasu marka meeshaa la maraya meel adag weeye is-ilaali buu yidhi is-ilaali oo dhabarkaaga fududee wa akhlis ilcamal camalka aad samaynaysa wanaaji ilaahay dartii u samee yay wax kale kaa soo dhexgelin fa ina naaqida basiir camalkan waa la sixi doonaa hadhow ilaahayga acmaasha saxayay naaqidka ehe fiirinayey ee waxa wanaagsanaya waxa uun kala saaraya basiir waa ku arkaya markaad camal falaysuuba ku fiirinaya dee iska fiiri wax wanaagsan baa la doonaya camalku haba yaraadee mar hadduu nadiif yahay yanfacuk waa ku anfacaya si kastoo uu u badan yahay haddii lagu dhex jiro fiihi maa fiihi hadduu yahay wuxuu taraya male meeshaasaa lagu qubaya waxba ma tarayo alimaamu maqdasi ayaa wariyey xadiidkaas asarkaas ayaa sanadkiisa ku wariyey rawa tirmidiyu fii saxiixihi imaamu tirmidi wuxuu wariyey sanadkiisa wuu ku wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam man yaxfadu minii hadihi alkalimaat fayacmalu bihina ow yucallimu man yacmalu bihin faqultu ana ya rasuula allah abu hurayra wuxuu leeyahay nabiga ayaa maalin istaagay markaasuu wuxuu yidhi war kelimaadkan yaa iga xifdinayo oo ku camal falayo ama yaa barayo sii gaadhsiinayo qof ku camal falayaa sii baray markaasaan idhi buu yidhi ana yaa rasuula allah anigaa kaa qaaday muxuu ku yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam 5 keliba ayuu u sheegay ittaqi lmaxaarima takun acbad annaas xaaraamta iyo xumaanta iska ilaali takun acbad annaas dadka midka ugu cibaado badan baad noqonaysa warda bimaa qasama allaahu lak waxa ilaahay uu ku siiyey raalli ku noqo takun aqna annaas dadka midka ugu qanisan baad noqoni haninimadu maaha maalka farada badan inama alghinaa ghina nafs haninimadu waa qanaacada wey wixii ilaahay ku siiyey inaad ku qanacdaa haninimo la yidhahdaa warda bimaa qasama allaahu laka takun aqna annaas wa axsin ilaa jaarika takun muslima dariskaaga wanaag u samee qof muslima haddaad tahay dadka jiiraankaagaa ogow qofka buka soo booqo kii dhinta wax ka soo duug midka baahan waxaad ku tari karta ku tar kan dhibaataysan u gargaar dariskaaga ka warqab waa laisweydiinayaa takun muslima qof muslimahaad noqonaysaa wa axibba linnaasi maa tuxibu linafsika takun mu'mina waxaad naftaada la jeceshahay dadkoo dhan oo mu'miniinta la jeclow qof mu'minaad noqonaysaa markaas wallaahi laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibuhu linafsihi buu leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalam qof adinka idinka mida mu'min kaamila ma noqonayo ilaa uu muslimiinta la jeclaado dadka mu'miniinta walaalihiisa wax alla wuxuu naftiisa la jecel yahay walaa tastaksir idixka qosolka ha badinin fa ina kasrata adixki yumiitu alqalb qaflay keenaysaa qofka iska qolqoslaya daa'iman oo kaftanka badan oo maalaayacniga iyo maantoo dhan maadda iyo waxa xilla ku dhex jiro ee meelaha aan munaasabka ahayn mar la arkaba ku sheekaynayo qafluu ku jiraa ninkaasu nin inuu qabri ka dambeeyo ama siraad ka dambeeyo ama su'aal iyo ilaahay in la soo hor isaajinayo ee ka dambaysa maaha hadduu intaa ku xisaabtamayo wakhtigiisa badan wuu ooyi lahaa ma uusan qosleen wey wallaahi low taclamuuna maa aclam la daxiktum qaliilan wala bakaytum kasiiran buu nabigu leeyahy sala allahu calayhi wasalam war waxa anigu aan ogahay idinka dambeeya haddaad ogaan lahaydeen wax yar baad qosli lahaydeen wax badanna waa ooyi lahaydeen ya walaa tastaksir dixka fa ina kasrata adixki yumitu alqalb
إمام الترمذي بحديث كوري سند كيس كوري لقمان الحكيم نك اللي يراد قال لولده وهو يعظه ويلكيس أيوه وعدنا يا لقمان الحكيم وحقيسس كالقوري يا ويلكيس سوء وعدنا يبو كل انتي بالين نين إلهي حكمة سيبوها قرآن كإلهي كشاق لقمان الحكيم هذا لا أدوى وين بويلكيس كو وعدنا يوي حتى مات خوفا من الله وشوقا إلى الله سبحانه وتعالى إلهي عبسديسا إيا إلهي اللي كلن كيسا إيا اللي قهيسا رجاو رجينا يؤدن تيوي ذاتك ووناكسنا يؤدن شوقا إلى الله وخوفا من الله بيؤدي من جرين سبحانه وتعالى وعيدك إلهي مركي لغا شاكيو انت أسوقف بأنا في حجرتيوي آياتك إلهي مركي لغضو الأغريو خطر بيقل جرين وادي من جرين أما وأدوان جرين عمر بن خطابة وحاليري أمير المؤمنين رضي الله عنه يا مالنا سوق المدينة مرة يو دمير سارا أيوه مغليبا إن سورة الطور أغرنا والطور وكتاب مسطور في رق منصور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع انت إلهي وكل أرتد سبحانه وتعالى انت أصو قسم إلهي مركو إزدواد ودار وحجري إن عذاب ربك لواقع دميرك وكسر عبال انت أصو بريبا لبوقن هيبال oo khatar galay oo naftu ay ka bixi gaartay wax kala ma aha wuxuu la jiraday sakaraadka wallahi waa cabsida ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay cabsidiisa allah nagu irsaaq aayaadkiisa ba habeen iyo daaraan aqrina lagu dul aqrinaya wax yarna nama diirinaya qalbigeena baan gagay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un luqman al-hakim wiilkiisa muxuu ku yiri ya bunay ad-dunya bahrun amiq ad-dunya waa bad buu bad xeel dheer oo salkeedu aad u fog yahay وقد غرق فيها ناس كثير الدنيا waxaa ku qarqoobay oo ku maashoobay oo ila tagtay hirkeedu ay la tagtay dad aad u fara badan buu intee adduunyo ku fidnowday oo ku dhaqaaqday markay dhiman hayeena bila amal ama bila iimaan ba adduunyada kaga tagay intay adduunyada joogeen isma ayna garanayeen waxa yaani amaaniyada iyo taswiifka toobada ay dib u dhigayaan iyo shaydaanka waswaaska u sheekaynaya umba lugooyay markaas waqtigoodii ku dhamaaday waqad qariqa fiha naasun kaseer dad fara badan baa adduunyo ku qarqoomay la tagtay faltakun safinatuka fiha taqwa allahi azza wa jalla adduunyo doonta aad ku marayso ilaahay cabsidiisa ha noqoto buu wax kale oo ku badbaadaysa ma jiro taas un ka dhiga doonta aad fuulayso adduunyada aad ku gudbayso taqwa allahi subhanahu wa ta'ala وحشوها الإيمان بالله دونتاس waxa lagu soo raray ee laga soo buuxiyay waa ilaahay iimaankiisa rumayntiisa iyo yaqiin ala Allah wa tawakkul alayhi wal isti'dad li liqaa'ihi subhanahu wa ta'ala doonta ma aha inaad alaab ku keenayso badeeco ku soo rarayso waa doon suuri ah weeye macnaheedu waxa weeye doontaas waa amal saalixa وإيمان يقين يتوكل على الله استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى وكده هي تا أمات كبد بادي وشراعها التوكل على الله دون تاسوح الوحيدية شراع يكر كل هذا هو إلهي تلاشاريسه سبحانه وتعالى لعلك تنجو وما أراك ناجيا ساهداد يشبو يري لعلك تنجو إناد بدبادا لغيابا وما أراك ناجيا أنا ملايين ما هي برينا لدنيا كبدبادس الدنيا dhibaatadeeda inaad ka badbaadayso marnaba u malayn mahayo xagee jooga marka anaga diyaar garowgaano talagalkaano intee la eg yahay maxaan diyaarsanay maxaan isku haleynayna horta qof la arkabo oo uu shanta salaadood uu iska riday oo yaani ayadoo waliba aksarkeedu bila cilmi ah oo sixadeeda iyo khushuuceeda iyo cabsideedu iska yar yahay hadaan uu qalab ka siino janna meel noo taalo bas intaan iska soo dhiganay wax استعداد كانوا انتين لقيه يعبسدنا آوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وحال قوري وحير من أراد غنى بلا مال وعزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليتق الله سبحانه وتعالى من أراد غنى بلا مال إنا تاجر نغطو نين غنئ بلا مال أيضا وحمالو كاهر مغضو سنجرين وعزا بلا عشيرة إن هذا عزيز نقطة أو دتك ودنا أو قصر رئيس بلا عشيرة هذا قبيل لاندير كذا لنا وقبيل تكفى نيس مجرو دتك هذا عز قول وحي لنا يان لاندير نمذا ورانو ريه بالبان كذا شيء إلى هالكرو
يا رهب المحيكو تريان wax ayagu aan naftooda durka iyo nafciga iska celi karin baad yaad isku haleynaysaa waxa leedahay dad baan haystaa anigu ayaga wax iska celin karin wa izzan bila ashira aziznimo oo yaani bila ashiratin tolaana adigoon tolka isku haleynaynin oo aan ku cizoobin qaraabadaadana aan ku cizoobin izzi ninkii doonayo ya wahaybatin bila sultaan in laga haybaysta adigoon boqor ahayn halka marka marayso in laga baqo nin boqor ana matid laba qof amiir oo matid miskiinka ilaahay baa tahay macnaas muslimiinta oo maadna uga jirta inta inaad hesho ma doonaysa falyataqillah ilaahay ha ka baqaburi fa inna allaha ya'ba an yudilla illa man asaa ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu diiday oo mar hore azaligi uu xukumay inuu duleeyo illa man asaa qofkii caasiy umbu ilaahay duleynaya ee qof ilaahay adeecay oo daacadiisa la yimid si kaamila ilaahay u adeecay marnaba ilaahay ma duleynaya subhanahu wa ta'ala ee waa ciideynaya وقال أيضا علي بن أبي طالب محيري من جمع 6 خصال لحسف ننكي ليمادو لم يدع للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا لحسف ننكي ليمادو جنة نكا وطل بيوانين جنة ديار قروبي ودوني نار نوكا قاشانت ننكا سواك عرريوي ما هيتا اللي حداثف من عرف الله فأطاعه إلهي ننكي أقون صدقه أضيعه وعرف الشيطان فعساه شيطان وحو يهي حقيقة ديس إلهي بانوش ننكي قرته فعساه وحو أبوية ريودن ديدو وعرف الحق فاتبعه حق أقون صدقه راعه وعرف الباطل باطل كأقون صدقه فتقاه اسك إلالي حق إنا قرته oo xaqnimo aad u aragto waa fadli min Allah haduu ilaahay ku tusiyo oo raacdo Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah haqq hadii ilaahay ku tuso oo xaqnimadiisa ilaahay ku tuso oo raacdo batilkana ilaahay ku tuso batilnimadiisa intuu ilaahay ku tuso aad ka fogaato waad liibanta wa arafa al-jannata wa arafa al-dunya الدنيا دي بو غرتay oo aqoonsaday farafadaha wuu iska tuuray waqti badan kama ina dhuminin adduunyo xaqiiqadeedii buu gartay wa arafa al-aakhirah aakhirana uu aqoonsaday qiimaheeda fadalabaha markaas uu dalbay way wax alla wixii uu janno ku heli lahaa buu raadinaya lixdaasi faninkii laga helo lam yada' madlaban lil jannati wala mahraban 'an an-nar wa qala ayda Ali ibn Abi Talib wuxuu yiri من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات جنة ننكي جعلاده وعشقيه دوني إن جنة لقليه خير كودك دقاه ومن أشفق من النار نار ننكي كعب سنينا انتهى عن الشهوات وحاس نفتو جعشا يبسكي لالنا ومن تيقن بالموت موت ننكي يقينيه إن هدمت عليه اللذات راح أمد الدمس من موت كدم بي راح أمد الدمس ومن عرف الدنيا قيمة هذا ننكي قرته هاند عليه المصيبة دباتة إيا وحا كوكو دعايو وحفظت بيكون نقرين محايلة ووح لغا تغيي الدنيا وحي تايبا ملو من راحة معها ذاتك إلهي دورتي وطنبا دباتة إيا حنون إيا فقر إيا دبا يكون مرين أدوية كوكو الدين وحي تايبا معها مصيبة إيا وطنبا وحي تايبا كنا نقرين هذا الحقيقة إيا قرأت هذه وقال حاتم الأسم ننكي لديه جري وحو يري سلف كيفو كاملها ذاتكي وونا سنة من ادعى 4 بلا 4 فدعواه كذب أفر ننكي شاكتو أفر سفنا أن لقهيني وحو شاكنا يوابين من ادعى حب الله إلهي بان جعله ولم ينتهي عن محارم الله إلهي وحو كرهبين كمهري فدعواه كذب وابين عليه ومن ادعى حب النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد بان جعله وكره الفقراء والمساكين مساكين تي فقراء والنعبية وكهنا يا وركوه وانا دبين سؤال بين ودبين بوليه فدعواه كذب ومن ادعى حب الجنة جنة دوني يعني وان ربابه لي ولم يتصدق إنه وحر مرسدنا مربه فدعواه كذب ومن ادعى خوف النار نار بان كبق يا أبو لي ولم ينتهي عن الذنوب ذنوبتنا كمهرية فدعواه كذب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنب 5 قبل 5 نبي وحير عليه الصلاة والسلام شن كفائديسو انت هذا شن قارن شبابك قبل هرمك بل يرى لماذا هذا كفائديسو
qabla haramika duqnimada intaada gaarin wa ghinaaka qabla faqrik inta aad hanti maalka haysato ka faa'iidayso inta aada faqiirin wey mar haddaad faqiirto gacantaadu marato waxaad qabanaysa male wa sixataka qabla suqmik inta aad fayowdahay ka faa'iidayso qabla suqmika intaada jirinin wa firaaqaka qabla shuqlik inta aad faaruqa tahay ee mashquul aadan noqonin ka faa'iidaysa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam inta aadan mashquulin wey wa xayaataka qabla mawtika inta aad nooshahay ka faa'iidayso qabla mawtika intaada dhimanin wey mar haddaad dhimato adduunyada wixii aad kasbatay oo camal ah unbaad hadhow ku intifaacaysaa hadduu khayr yahay hadduu xumaan ahaana dhibaatadiisii unbaa ku hortaalla wey mar haddaad dhimato camalkaagii wuu go-ay xadiidka imaamu xaakim baa sanadkiisa ku wariyey wasaxaxa wuuna saxiix yeelay wey waxaa kaloo nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi maa min yowmin tadlucu shamsu fiihi ilaa wahuwa yunaadii ya bna aadam ana khalqun jadiid wa calaa camalika shahiid faاqtanim minii fa inii lan acuuda ilaa yowmi alqiyaama wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam yoon ma jiro qorraxdu ay soo dhalanayso maa min yowmin tadlucu shamsu fiih maalin ma jiro qorraxdu ay soo dhalanayso ilaa wahuwa yunaadii maalinkaasuu u dhawaaqayaa muxuu leeyahay ya bna aadam ibna aadamow ana khalqun jadiid anigu waxaan ahay makhluuq cusub baan ahay wa calaa camalika shahiid camalkaagana markhaati ayaan ka ahay waxa alla wixii camal ahood samayso hadhow qiyaamahan ka markhaati kici doonaa fakhtanim minii iga faa'iidayso inta aana ku dhaafin iga faa'iidayso fa innii anigu la nacuuda soo laaban maayo ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamaha intii laga gaaro wey maalin tegey ma soo noqonayo wixii camal ahoo dhexdiisa dhacayna wuu la tegay un bas soo noqosho ma leh wax wanaagsan baa la doonayaa maalin kastoo cusub iyo habeen kastoo cusub camal wanaagsan inaad dhexdiisa ku samayso taasaa la doonayaa si aad hadhow ilaahay hortiisa qiyaamaha aad ugu faraxdo wey xadiisulqudsi waxaa ku sugnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ba wuxuu leeyahay ya bna aadam laa takhtar bishabaabika fakam min shaabin sabaqaka ila almowt ibna aadamow dhallinyaronimada ha ku kadsoobin kan badanaa nin dhallinyaro ah oo hortaa dhintay mowdkii uu yacni dafay hortaa uu dafay badana laa takhtar bishabaabika dhallinyaronimadaada ha ku kadsoobin fakam min shaabin badana nin dhallinyaro ah sabaqaka ila almowt mowdkii kaaga hormaray qofkii weynaa oo waayeelkaayoo joogo intuu yacni nin yar oo dhallinyaro ah u dhintay badana ya bna aadam laa tafrax bidunyaaka war adduunyadaada ha ku farxin falasta bimukhladin adduunyada mid lagu waarinayo ma tihid haddii xoogaa maala lagu siiyo ama mulki aada hesho xoogaa madaxnimo aada hesho adduunyada ha ku farxin maxaa yeelay ku waari maysid adduunyada oo joogi maysid waxaan lagu waaraynin oo lagu baaqi ahaanaynina farax ma leh marka ha ku farxin ya bna aadam istaxyi minii cinda macsiyatik astaxyi minka falaa ucadibuk ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ibna aadamow iga xisho aniga iga xisho cinda macsiyatik markaad cisyaanka iyo dembiga la imaanayso iga xisho baa ilaahay leeyahay waxaan rabaa ilaahay cabsidiisa iyo cadamadiisa iyo haybadiisa inay qalbigaaga ku soo dhacdo oo markaa xumaantii aad doonaysa ama qalbigaaga ku soo dhacday markaa aad ka tagto wey astaxyi minka falaa ucadibuka ilaahay wuxuu leeyahay waan ku ikraamaya wuu ku wanaajinaya oo kuma cadaabayo haddaa adigu cabsidayda aada ilaaliso oo dunuubta iska ilaaliso ood iga xishooto anigana ku cadaabi mahayo ilaahay saasuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaa la yidhi waxaa la weydiiyey ninkii la dhihi jiray suldaanu zaahidiin ibraahim ibni adham radia allahu canhu ibraahim ibni adham raggii salafka ayoo wanaagsanaa buu ka mid ahaa raggii ehlu zuhdiga ahaa ee adduunyada ka tegey oo ilaahay daacadiisa subxaanahu wa tacaala u go-ay ayuu ka mid ahaa maalin maalmaha ka mid a ayay jamaaco su-aaleen oo waxay yidhaahdeen uusiinaa bimaa yanfacuna
بل وح إلهي نغو أنفعه أو خير النودر دارا إبراهيم بن أدهم فقال وحي رضي الله عنه إذا رأيتم الناس مشغولين بأمر الدنيا فاشتغلوا أنتم بأمر الآخرة هدي على ركتان dadku ayagoo isku mashquulinayo umuurta adduunyada inay xoolo helaan bay doonayaan inay madax noqdaan bay doonayaan yani wax alla wixii adduunyada oo quruxdeeda oo ziinadeeda ah unbay jecel yihiin oo isku mashquulinayaan daaro dheer inay dhistaan bay rabaan beero waaweyn inay yeeshaan bay rabaan baabuur fara badan iyo diyaaraday doonayaan haddii aad aragtaan dadku inay adduunya isku mashquulinayaan fastaqiluu antum biamri alaakhira aakhira amarkeeda isku mashquuliya hal adduunya waa faaniyo wax laga tegahayo weeye aakhiradii yaysa idin dhaafin midda lagu baaqi ahaanayo weligeed aan laga dhimanaynin waa aakhiro waida ishtaqaluu bitazyiini dawaahirihim fastaqiluu antum bitazyiini bawaadinikum haddii aad aragtaan dadku inay isku mashquulinayaan daahirkooda inay qurxiyaan labis wanaagsan inay qaataan haybad iyo yacni qurux badanka inay yeeshaan ay rabaan adinku waxaa isku mashquulisaan baatinkiina saad u wanaajin lahaydeen daahirkan quruxda badan waxba ma tarayo haddii mar yacni caqiidadaadii iyo yaqiintaadii iyo tawakulkaagii iyo waxaagii hadday hallaysan yihiin oo qalbigaaga iimaan fiican baan ku jirin yaqiinna aadan lahayn bidhaantan quruxda badan wax ma tarayso maxalli nadrillaahi alqalb meesha ilaahay addoonka uu ka eegayo waa qalbiga ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa jamaalikum ilaahay ma fiirinayo suuradiinna iyo quruxdiinna walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum saasuu nabigu leeyahy sala allahu calayhi wasalam ilaahay daahirkiina waxba kama eegayo maxallu nadrillaahi alqalb meesha ilaahay oo addoonka ka daalacanayo oo uu ka fiirinayo waa qalbiga marka qalbiga wanaajiso baatinkaagu ha wanaagsanaado nabiga calayhi salaatu wasalaam dacooyinkiisa waxaa ka mid ahaa ilaahayow ka yeel sirtayda mid ka khayr badan calaaniyadayda ya waxa aad muujinayso dadka u muujinayso waxa la doonayaa waxa kuu qarsoon oo baatinkaaga inuu ka wanaagsan yahay baa la doonaya maxaa ila acmaashan daahirka ah waxaaba laga yaabaa istutus iyo waxaas iyo waxaan fiicnayn inuu ku jiro wey baatinkaagu inuu wanaagsanaada la doonaya baatinkaagu inuu wanaagsanaado marka hadday dadku daahirkooda qurxiyaan oy bidhaantoodan kore quruxsan tahay adinku waxaad qurxisaan buu leeyahay bitadyiina bawaadinakum dhaadheer oo filooyin iyo daaro dhaadheer buu rabaa dabaqyo inuu dhisto fastaqiluu bicimaarati alqubuur qabriga inaad camirtaan kaa isku mashquuliyo wey maxaa yeelay guriga rasmiga ah oo marnaba aan ku hurayna waa qabriga wey qabrigana wixii aad soo camal fasho unbaad ka helaysaa wey alqabru imaa rawda min riyaadi aljanna wa imaa xufratun min xufari naar qabrigu wuxuu noqonayaa beer beeraha janno ka mid a ama god godadka naarta ka mida wey waa siduu camalkiisu ahaa un qofku camalkiisu sida uu ahaa un wey marka ka fikir qabrigaaga saad ku dhisi lahayd camal wanaagsan baa la doonaya qabriga inaad ku dhisto qofkii adduunyada dadaalo oo waddada wanaagsan ku dadaalo mutaabacada nabiga ku dadaalo calayhi salaatu wasalaam qabrigiisa wax wanaagsan buu ugu tegayaa qabri qurux badan buu u tegaya waida ishtaqaluu bicuyuubi innaas dadka ceebahooda hadday isku mashquuliyaan dadku waa sida dadku loo badan yahay in dadka wax laga sheego oo qofku qofka kale wax ka sheego ceebta dadka uu arkayo fastaqiluu adinku waxaad ku mashquushaan bicuyuubi anfusikum naftiina ceebteeda ku mashquulo ceebaha dadka lagu weydiin maayo adiga hadhow laakiin ceebtaadaa lagu warsanaya adigu iswanaajiyo istoosi ceebaha adigu aad leedahay taas ka fikir oo ka murugo sida aad ku baabi'in lahayd oo ku zuulin lahayd akhlaaqda wanaagsan aad ugu sifoobi lahayd akhlaaqda xunxunkaana aad uga dheeraan lahayd adigu ku dadaal haba ceebaha dadka isku mashquulino waxaa yacni liibaanay baa layidhi ninkii ceebtiisa ku mashquulo oo dadka ceebtooda uga mashquulo qofkaasaa liibaanay waxaa halaagsamay oo halaag ku dhacay dadka ceebtooda uu ninka arkayo oo ceebihiisana asaga hilmaamay oo waxba iska ogeyn asaga imaamu shaafici ashcaartiisii waxaa ka mid ahaa lisaanuka laa tadkur bihi cawrata mri'in fa kulluka cawraatun walinnaasi alsunun carabkaaga marnaba ha ku sheegin ruux bini aadama ceebtiisa iyo cawradiisa fa kulluka cawraat adiga dhammaantaad ceeb socotaa tahay adiga dhammaantaa ceeb socotaa tahay walinnaasi alsunun dadkuna carab bay leeyihiin haddaad dadka ceebahooda sheegto dadka dacaayadayso oo xumaantooda una aad raadiso adigana ceebtaada bannaankaa unbaa lagu hayaa hel adigaba ceeb baad leedahay dadkuna carab bay leeyihiin waida ishtaqaluu bikhidmati almakhluuqiin
dadka khidmadooda hadday isku mashquuliyaan dadku qofba qof buu u shaqaynaya ninkii faqiirkaa nin taajir u shaqaynaya kii madaxda waa loo shaqaynaya waa la daba ordaya bini aadam khidmadiisa hadday isku mashquuliyaan fashtaqiluu bikhidmati rabbi alcaalamiin adinku waxaad ku mashquulshaan oo isku shuqlisaan bikhidmati rabbi alcaalamiin ilaahay khidmadiisa ku dadaal ilaahay u khidmay adugu markaasaad wanaagsanaanaysaa wattakhiduu yeesha min haadihi dunyaa adduunyadan zaadan yuusilukum ila alaakhira adduunyada waxaad ka samaysataan sahay iyo zaad idin gaarsiinayso aakhiro idin gaarsiinayso fa inama addunyaa adduunyadu masracatu alaakhira aakhiro beerteedii wey wasiyadiisii iyo dardaarankiisii ibraahim binu adham suldaanu zaahidiin ninkii la odhan jiray wuxuu ku soo dhammeeyey wattakhiduu min haadihi addunyaa zaadan yuusilukum ila alaakhira adduunyada intaad joogtaan oo nooshihiin maalmaha yare adduunyada aad joogtaan waxaad samaysataan zaad idin gaarsiinayo aakhiro fa inama addunyaa adduunyadu masracatu alaakhira aakhiro masracadeedii wey wax alla wixii adduunyada aad beerato unbaad aakhiro goosanaysaa hadhow marka wax wanaagsan ku dadaal zaadka iyo sahaydu yo idinku yaraanin zaadka iyo sahaydu yaysan idinku yaraanin sidaasuu leeyahay siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam yacni xadiidkii aanu soo maraynay abu dar alkafaari siduu nabigu ugu dardaarmay wastaktiri zaadan fa ina safara dawiil buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam war zaadka badso sahaydu yayna kugu yaraanin camalka saalixa badso fa ina safara dawiil safarka kaa dambeeya aad buu u dheer yahay hadhow qiyaamaha markii la tago haddii camalku kugu yaraado sahaydu kugu yaraato waa ayaan darro waad kurboonaysaa hadhow marka inaad zaadka badsato kaasaa la doonayaa adduunyada markaad joogtaadaba jeclayn haddii aad dad la safarto waddo aad gasho inaad dad sahay wato oo ayagu diyaar ah oo isku filan adigoo waxba wadanin ama wax yaroo aan kugu filnayn wato inaad la socoto ma jecli aakhirana sidaa atardaa an takuuna rafiiqa qawmin lahum zaadun wa anta bigayri zaadin saasuu yidhi shaacirkii ma jeceshahay inaad raacdo ood la socoto qoom zaad wato adigana waxba aada wadan ayaga unay ku yidhahdaan nakeen iskala kaana soco ma jecli naftaada dhiibkuma ah hadhow aakhiro hadday dadku sahay la wada yimaadaan nin walba isticdaad uu soo sameeyey adduunyada camal wanaagsan uu la yimaado adigana waxba aada wadanin hadda soo ayaan darro ma ah soo ayaan darro waxaa kaloo la wariyey ibraahim bini adham nin wuxuu ahaa aada iyo aada u cajab badan dadkii salafka ahaa ee wanaagsanaaye zuhaadda ahaa ee adduunyada isaga tegey ee isticdaadka sameeyey adduunyada yani xaqiiqadeeda intay ogaadeen ka jeestay ayuu ka mid ahaa nin baa u yimid baa li ibraahim bini adham radia allahu canhu fa qaala lahu wuxuu u yidhi yaa abaa isxaaq waa kunyatu ibraahim bini adham innii musrif calaa nafsi naftaydaan ku xadgudbay buuli dembi badan baan sameeyey faacrid maa yakuunu lahaa zaajira waxaad ii bandhigtaa bal iwacdiyo wax naftu ay ku sajroomayso oo xumaanta iyo dembigan ay ku sii taagan tahay ay uga harayso ii sheeg buuli fa qaala ibraahim binu adham wuxuu yidhi in qabilta 5 khisaal 5 khislo haddaad yeesho oo waqadarta calayhaa aad samayso lam taduruka almacsiya macsiya kuma dhibayso yacni wax dembi a kaaba dhici maayo 5taa sifo haddaad xaqiijiso ood ku camal fasho wax macsiyo la yidhaahdiyo adiga maba is arkaysaan qaala wuxuu yidhi haati ya abaa isxaaq waa waxa aan doonayo bal ii sheeg waxa naftan celiyo oo xumaanta iyo israafka ka reeba waxa aan raadinayo weeye ii sheeg qaala wuxuu yidhi ibraahim bin adham aluulaa 5taa khisla midda ugu horrayso fa idaa aradta an tacsi allaah ilaahay inaad caasiso markaad doonto tacaala korahaye falaa taakul risqahu risqigiisa u daaha cunin saasuu ku yidhi qaala wuxuu yidhi ninkii fa min ayna akulu xaggeen ka cunayaa wa kullu maa fi lardi risquh wax alla waxa dhulka yaallo oo dhan ilaahay risqigiisi weeye xaggeen wax ka dhadhaminayaa marka haddaan ilaahay risqigiisa u daayo xaggeen ka helayaa risqi waxa dhulka yaallo o dhan waa wax ilaahay risqigiisi uu leeyahay qaala wuxuu yidhi ibraahim bin adham yaa haadaa kanow afa yaxsunu bika miyuu kuu wanaagsanaanayaa an taakula risqahu ilaahay risqigiisa inaad cunto oo watacsiyahu haddana aada caasiso
suuroobaysa in ilaahay uu ku irsaaqay oo ku wanaajiyo risqigiisa aad ka cunto markaad cuntadiisii ka dheregtana aad ilaahay cisyaankiisa u kacdo ilaahay caasiso miyay wanaagsan tahay qaala wuxuu yidhi laa haddaba iska daawnan macsiyada iska ilaali ama ilaahay risqigiisa u daa ha ka cunin athaaniya midda labaad wuxuu yidhi idaa aradta an tacsi illaah ilaahay inaad caasiso markaad doonayso haddaad damacdo inaad ilaahay caasiso falaa taskun shay-an min bilaadi meel ilaahay ardadiisa ka mid a haba degin dhul kala raadso gurigiisa u daa dhulkiisana oga tag meel kale aad qaala wuxuu yidhi haadihi acdam tanaaba ka sii weyntii hore eyna askunu xaggeen askunayaa ma meel kaloo aadaan garanayaa meel aan ilaahay ardadiisa ahayn oo aad tegaysa miyaa jirto maya qaala wuxuu yidhi yaa haadaa kanu oo fa yaxsunu bika miyuu ku wanaagsanaanayaa an taakula risqahu ilaahay risqigiisa inaad cunto wa taskuna bilaadahu ardadiisana aad askunto oo fa tacsiyahu haddana aad caasisa wey miyay wanaagsan tahay qaala wuxuu yidhi laa athaalisa tii saddexaad qaala wuxuu ku yidhi idaa aradta haddaad doonto an tacsiyahu ilaahay inaad caasiso wa anta ta'kulu risqahu wa taskunu bilaadahu adoo ilaahay risqigiisa cunayo ardadiisana askunayo fandur mawdican laa yaraaka fiihi meel uuna ilaahay kaa arkaynin daydayo faacsihi fiihi ku caasi meel uuna ilaahay kaa arkaynin raadiyo meeshaa ku caasi un qaala wuxuu yidhi yaa ibraahiim maa haadaa hadalkaas muxuu yahay say ku suuroobi kartaa inaan meel uuna ilaahay iga arkaynin aan tago wa huwa yadalicu calaa maa fi saraa'ir xataa qalbigayga waxa ku jiro oo qalbigayga ku soo dhacaya ama uurkayga ku soo dhacayuuna ilaahay og yahay inteen oga dhuumanaya oo meeshuusa ilaahay arkaynin waa xagge qaala wuxuu yidhi yaa haadaa ayaxsunu bika miyuu kuu wanaagsanaanaya an ta'kula risqa ilaahay risqigiisii inaad cunto oo wa taskuna bilaadahu arladiisana aad askunto oo wa tacsiyahu aad caasiso wuxuu yaraaka asagoo weliba ku arkayo oo wa yaclamu og maa tujaahiru bihi waxaad samaynayso oo xumaanta oo yacni cisyaanka oo samaynaysa ilaahay uu ku arkayo miyay wanaagsan tahay qaala wuxuu yidhi laa wax habboon ma ah inaad ilaahay adeecdo unbuu kugu leeyahay ma ogiye asagoo ku arkayo sidaana kuu ikraamay oo risqi ku siiyey oo meelaad askunta ku siiyey oo ku dejiyey in haddana aad khilaafto amarkiisii aad jebiso waa shay aada xun alraabica khisladii afraad wuxuu yidhi idaa jaa'aka malakulmowt malakulmowt hadduu kuu yimaado liyaqbada ruuxaka ruuxdaada inuu qibloodo faqul lahu waxaad u tidhaahdaa akhirnii ii kaadidhe xataa atuuba ilaa aan toobad keeno wa acmala lilaahi saalixan malakumowdka la hadalo waxaad tidhaahdaa warriyow ii kaadi ilaa aan ka toobad keeno camal wanaagsanna aan ka sameeyo idaah ku dheh qaala wuxuu yidhi laa yaqbalu minii igama aqbalayo ma iga yeelayo qaala wuxuu yidhi ibraahim binu adham yaa haadaa kanow fa anta idaa lam taqdir haddaada karaynin an tadfaca canka inaad iska reebto almowta mowt litatuuba inaad toobad keento fa kayfa tarju lkhalaas dembiga aad samaynayso inaad ka fakatood ka badbaaddo seed u rajaynaysaa marka maxaad isku hallaynaysaa maxaad doonaysa inaad ku fakato alkhaamisatu midda shanaad qaala wuxuu yidhi idaa jaa'aka azabaaniya malaa'igta zabaaniyada la yidhaahdo naarta dadka ku cadaabo ilaahay uu ku sheegay inay yihiin 19 markay kuu yimaadaan addoon caasi ahaadahayd waa dhimatay markii naarta lagu kaxeeyo oo zabaaniyadu intay ku qabtaan ay doonayeen inay naarta kugu ridaan yowma alqiyaamati maalinka qiyaamaha liya'khuduuka ila annaar naarta inay kugu ridaan falaa tadhab macahum ha raacin diid ma idin raacayo dheh qaala wuxuu yidhi innahum ayagu laa yadacuunii ima daynayaan ma waxbaa la isu'aalaya qadaadkun baa laigu soo dhegaya igama tegaayaan walaa yaqbalu minii igamana aqbalayaan awood haddii la yidhahdana ayaa iga xoog badan amarna way qabaan oo ilaahay bay amar ka haystaan mar hadday igu soo dhegaan waa bes ma iga yeelayaan igamana tegayaan qaala wuxuu yidhi fakayfa tarju najaata fakayfa sidee baad tarju u rajaynaysaa annajaata koritaan idan marka inaad badbaaddo maxaad doonaysaa marka inaad ku badbaaddo haddii aad waxba adigu iska reebi karin hadday ku kaxeeyaanna aada diidi karin maxaad doonaysaa marka inaad ku badbaaddo faqaala wuxuu yidhi
xasbi xasbi ninkaa wuxuu ahaa nin naftiisa ku xadgudbay oo dembi badan kasbaday buu ahaa. ibraahim bin adham markuu kelimaadkaa ku yidhi wuxuu yidhi xasbi xasbi bas waa igu filan tahay buu. marka adduunyada inta yaroo aan joogno haddaanna ka sahay qaadanin oona ka daad qaadanin waan ka shallaayaynaa walaalayaal. shallayto ayaa nagu dhici. marka waxaa la rabaa inaan isticdaad samayno oon diyaar garowno inta yar ee aan waktiga haysanno, waktigu uusan naga dhammaanin. intaasaa la rabaa inaan isticdaad samayno. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man khaafa adlaj waman adlaja balaqa almanzil alaa ina silcata allaahi haaliya alaa ina silcata allaahi aljanna. man khaafa ilaahay ninkii ka baqo oo ka cabsanayo adlaja wuu guuraa, ma seexanayo habeenkii daacadu u guuraya. waman adlaja ninkii guurana balaqa almanzila manzilkii uu doonayey buu gaarayaa. alaa ina silcata allaahi haaliya badeecada ilaahay waa qaali, wax raqiis iyo dheeldheel lagu helaya ma aha. alaa ina silcata allaahi aljanna badeecada ilaahay waa jannada. janno waa qaali, dadaal bay rabtaa, mujaahadatu nafsi bay rabtaa, inaad yacni dadaal badan iyo isticdaad aad samayso yaa lagaaga baahan yahay. war badeecada ilaahay waa qaali, waxaa la rabaa inaad ku dadaasho ood ka faa'iidaysato. nabigu calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi binu cumar yuu sidaa intuu garabka u qabto wuxuu ku yidhi kun fi dunyaa kaannaka qariib ow caabiru sabiil. cabdullaahi binu cumarow adduunyada waxaad ku noqotaa nin qariib ahoo kale. qofku hadduu musaafir yahay oo magaaladan uu ku cusub yahay oo uu yimaado dee wuxuu ka yaqaano ma jiro. gurigaas uu degan yahay unbuu joogayaa ama masaajidka unbuu joogayaa, magaaladaba dadba kama yaqaano, wuxuu ka garanaya male, waa qariib. adduunyada saasoo kale ku noqo, ayada dhan isaga dhex baxo, qariib ku noqo oo camal fara badan iyo hawlo fara badan ha ku yeelanin adduunyada. ow caabiru sabiili nin wadda sidaa u gudbaayo oo kale adduunyada ku noqo. wa kaana ibnu cumar cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdo idaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa wa idaa amsayta falaa tantadir isabaax. haddii aad waaberiisato oo ilaahay nabad kugu waaberiyo galabtii baad gaadhaysaa haysdhihin. wa idaa amsayta haddaad galabaysato qoraxdu kuu dhacdana falaa tantadir isabaax subaxii ha suginoo berri subax baad gaadhaysaa hays odhan. naftaada waxaad ku tirisaa dadka dhintay ku tiri, isku xisaab wey, yacni dadaal samee. marka lagaa dhaqaajin doono adduunyada lagaa wadayo ma garanayside isticdaad samee oo dadaal. luqmaanulxakiim yaa wiilkiisii u dardaarmay. luqmaanulxakiim waa kii dee xikmo ilaahay uu siiyey ee ilaahay qur-aanka uu noogu sheegay. nin mawcido badan buu ahaa luqmaanulxakiim. wuxuu ku yidhi wiilkiisii yaa bunay innii muusiika bi8 ashyaa, 8 shay baan kuu dardaarmaya. 8daa shay ku dadaal. 8 shay ayaan kuu dardaarmaya. ixfad qalbaka fi salaat, qalbigaaga xifdi markaa salaada tukanayso. xuduurulqalbi baa lagaa rabaa. mar haddaad salaad gashay ilaahay baad hor taagan tahay, ma aha qalbigaaga inuu maqan yahayo waxa lisaanka aad ka sheegaysa iyo qalbigaaga iskhilaafsan yihiin. ixfad qalbaka fi salaat, markaa salaada tukanayso qalbigaaga xifdi, wax adduunye ayayna soo gelin. xuduurulqalbi ku tuko. waxfad nadraka fii buyuuti innaas, ishaadana ilaali oo dadka guryahooda markaad ku jirto ama aad ag marayso indhahaaga ilaali. meel aan loogu talagelin ee aan loo ogolayn ishaadu yaysa ku dhicin, ilaali indhahaaga. waxfad lisaanaka fii majaalis innaas, carabkaaga xifdi fii majaalis innaas. meel markay dadku isugu yimaadaan ee maxfalrada la isugu yimaado nin edab leh oo carabkiisa ilaaliya noqo. waxfad badnaka min xulquumika, calooshaada ilaaliya oo min xulquumika waxa aad dhuunta marinayso ee calooshaada gelayo waxaad hubto oo xalaala ha noqdo. ilaali buu yidhi calooshaada, xaaraam yaysa gelin. xaaraantu waa balaayo mar haddii calooshaada la gasho, khatar weeye. marka waxa aad dhuunta marinaysa ee calooshaada gelayo ilaali buu yidhi, iska hubso.
واذكر اثنين وانسى اثنين. وحي لقمان الحكيم لما حس ولقى هدين مركز تحسسنو لما اسكه المان هذا سوق على ولقى اسكه المان. اذكر الله والموت إلهي حسوسنو يوسى قلبك كبحن مركز موت كان حسوسنو ها هلمامن حداد موت بالمانطية دي مشادة آخرات هلمامي مركز توحل دوني إلهي حسوسنته سبحانه وتعالى جيريدنا على حسوسنته وملكمه وسيدا كور تاغيه مركز استعداد باسمين وآخرات أديار قروبي قبره قيامه ميزانك حسابتي kitaabkii la qaadanayay intaad ka qaadanaysaa kitaabkaaga midigta mise bidix marka ilaahay nagu soo horistaajiye see noqon labadaa xusuusno udkurullaha walmowt ilaahay iyo mowtka xusuusno wansa ithnayni laba iska hilmaan haba sheegin ixsaanaka ila annaas wanaagga dadka aad u samaynayso wa isaa'atahum ilayka iyo xumaanta adiga ay kugu samaynayaan iska hilmaan buri labadaas ya labadaa iska hilmaan haddaad wanaag dad u samayso ood wax fiican dadka u tarto waxba sheegin adigu haddaad sheegto dee camalkii tawaabkii iyo ajirkii baa kaa baaba'aya ilaahay agtiisu ilaahay baa kuu xifdinayo asagaa kuu abaalmarinayo marka ixsaankaagi iyo wanaaggaagi iyo khayrka aad tartay ee dadka aad u tartay iska hilmaan wansa ixsaanaka ila annaas wanaaggaaga dadka aad u samaynayso iska hilmaan wa isaa'atahum ilayka xumaanta ay ayaga wa isaa'atahum ilayka xumaanta ay kugu samaynayaan iska hilmaan haddii dadku ay ku xumeeyaan ee adigu waa iska cafiso waxba aada ka soo qaadan ilaahay baa wanaag kugu abaalmarinayo subxaanahu watacaala marka adigu inaad ruuxa aad ka abaalmariso xumaantii uu kugu sameeyey ama aad u qabsato ha isku dayin iska hilmaan labadaas. luqmaanulxakiim waa wasiyo aada u baliiqa uu wiilkiisii usoo jeediyey ya kelimaadkaas nabigu calayhi salaatu wasalaam walaalayaal wuxuu yidhi bayna alcabdi wa bayna aljanna sabcu caqabaat addoonka mu'minka ah bayna alcabdi almu'min addoonka mu'minka ah iyo wa bayna aljanna sabcu caqabaat 7 caqaba u dhaxayso qofka mu'minka ah jannada inta uu ka gelayo haddiiba ilaahay uu geliyo subxaanahu wa tacaala wuxuu noqon doona lama ogo dhibaatooyin badan baa ka sokayso caqabo fara badan oo adag midba midda kale ka adagta ahwanuhaa almowt buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ugu fudud mowtka iyo sakaraatu mowtka yaa ugu fudud nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu dhibanayey caaisha bintu abibakar waxay leedahay biyo ayaa sidaa nabiga hortiisa u yaallay weel yaroo biyo ay ku jiraan markaasuu gacanta sidaa u gelinaya markaasuu wejiga marinaya laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam ya haddii marka sakaraatu mowtka hadduu sakaraad iyo dhibaato nebi maxamed uu kala kulmay calayhi salaatu wasalaam maxaad u malaynaysaa dadkii kale 7 caqabo oo mowtkaas ugu fudud yahay yaa addoonka ka horreeya wa acdamuhaa midda ugu weyn alwuquuf bayna yaday illaahi subxaanahu wa tacaala 7 caqabo waxaa ugu adag oo ugu cabsi badan marka ilaahay lagu soo hor istaajiyo subxaanahu wa tacaala haddii ilaahay lagu soo hor istaajiyo bilaa turjibaan ruux la arka ilaahay buu soo hor istaagaya ayadoo wax u turjubaanaya uusan jirin wax kuu afnaqaya ma jiro wax wehel kuu ah ma jiro keligaabaa ilaahay ku xisaabinaya subxaanahu wa tacaala taas wax ka daran ma jira wey waa midda ugu adag oo ugu cabsi badan wey marka qofku adduunyadan intuu joogaa la doonayaa inuu ka fikiro oo uu aad iyo aad qalbiga ugu hayo ilaahay liqihiisa subxaanahu wa tacaala man axaba liqaa'a allah axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaa'a allah kariha allahu liqaa'ahu buu nabigu sala allahu calayhi wasalam ilaahayna kulankiisa ninkii jeclaado ilaahayna wuu jecel yahay la kulankiisa ilaahay la kulankiisa ninkii naco ilaahayna la kulankiisa waxba kuma falay ya caaisha ayaa nabiga su-aashay oo bacdu aswaajihi yaa rasuula allah innaa lanakrahu lmowt mowtka waa necebna miyay noqonaysaa ilaahay la kulankiisii oo nacnay miyay noqonaysaa haddaan geerida necebna laysa daalika bu nabigu kaagaas ma aha laakiin qofka mu'minka ah marka nafta laga qibloonayo nafta laga qaadayo
waxaa la tusayaa majliskiisii uu jannada ku lahaa ayaa la daalacsiinaya shay ma jira marka uu ka jecel yahay waxa hortiisa awood nafta in durban laga qaado ayuu jecel yahay fa axabba liqaa'a allah ilaahay la kulankiisii buu jeclaan fa axabba allahu liqaa'ah ilaahayna qofka mu'minkaa inuu karaameeyo oo uu soo dhoweeyo ilaahay wuu jecel yahay gaalkana marka nafta laga qaadayo yaa wuxuu arkayaa la tusaya waxaa hortiisa yaal yaa la tusaya oo cadaab iyo dhibaato ah fakariha liqaa'a allah ilaahay la kulankiisii buu kahonayaa dee waxuu haysto oo isticdaada ma jire fakariha allahu liqaa'ah ilaahayna la kulankiisa waxaa ku foofalay saxaabiga la yidhahda xandala yaa wuxuu leeyahay kunnaa cinda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid a ayaa nabiga ag joognay fawacadanaa mawcidatan wajilat minha alquluub wadarifat minha alcuyuun nabigu wacdi ayuuna wacdiyey aad u xeel dheer oo kulligaana aan la oyno indhihii oo dhan ay la ilmeeyeen quluubteenna oo dhanna way cabsatay buui markaasaan soo laabtay gurigaygii baan u soo laabtay fa nasiitu markaasaa waxaan hilmaamay buu yidhi markaan intaan reerkii ku soo laabtay oo reerkayga aan iska dhex galay oo sheeko iyo waxa yacni aanu iska galnay ayaan hilmaamay buuhi wax alla wixii nabigu nagu wacdinaya calayhi salaatu wasalaam markaa nabiga agtiisa fadhinayna waxaad moodaa buuhi jannada iyo naarta inaan isha ku haynay oon arkayn markaasuu soo laabtay oo uu soo cararay asagoo leh oo ku hadlayo naafaqa xandala waa munaafiqoobay si abubakar ayaa dhexdooga soo dhacay markaasuu wuxuu yidhi war waxaad sheegaysa waa max xandalow wuxuu yidhi markaan nabiga la joogno calayhi salaatu wasalaam waxaad moodaa jannada iyo naarta inaan aragno mar alla markaan laabanno oon guryahaanagii ku laabanno oon ehelkii iyo maalkii aan dhex galno waan hilmaamaynaa wixii nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa dee soo nifaaq maaha taas si abubakar wuxuu yidhi waana kadalik war aniguna sidaa un baan hay labadoodii baa isi soo raacay nabiga ayay u yimaadeen markaasuu xandala wuxuu yidhi naafaqa xandala waa munaafiqoobe yaa rasuulallah wuxuu ku yidhi nabigu maxay tahay waxaad sheegaysa wuxuu yidhi rasuulka ilaahay markaa adiga kula joogno ee aadna wacdiso waxaad moodaa buuri jannada iyo naartii inaan arkayno indhaha ku hayno marka aan agtaada ka laabanno guryahaanagii ku noqonnona waan hilmaamaynaa wixii aad noo sheegtay badankiisa waan hilmaamayna wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam haddaad daa'imi lahaydeen sida aad tihiin markaad aniga ila joogtaan la saafaxadkum almalaa'ika malaa'igtaa idin musaafaxayn lahayd fi turuqi wa calaa furushikum waddooyinka magaalada waddooyinkeeda markaad maraysaan malaa'igtaa idin salaami lahayd gacantaa idin qaban lahayd gudashiina adinkoo ku jiifo ayay gacanta idin qaban lahayd oo idin salaami lahayd laakiin ma yeeli kartaane walaakin yaa xandala saacatan fa saacatan buri nabigu calayhi salaatu wasalaam saacatan lirabbik saacad rabbigaa u yeelo xisaabtana wixii camal ahood samaysatay iyo ka murugo rabbigaa u yeel saacadna linafsik ilmahaaga iyo ciyaalkaaga u shaqayso saacatan fa saacatan buri yacni ma daa'imi kartaan markaad aniga ila joogtaan sida aad tihiin ma daa'imi kartaan buri nabigu calayhi salaatu wasalaam adduunyadata walaalayaal wax qiimahay leedahay ma jiro ibraahim bin adham baa la weydiiyey lima zahidta fi dunya adduunyada maxaad ugu zaahiday maxaad isaga tagtay baa layidhi adduunyada aad u nacday qaala wuxuu yidhi lisalaasin 3 shay baan u nacay buhi adduunyada maxay yihiin 3daa shay waxaan ogaaday oo yaqiinsaday buu yidhi qabriga cidlanimadiisa waxshatu lqabri walaysa macii mu'nis waxa igu wehelinayo oo qabrigaa igu wehelinayana ma jiro keligay in qabriga laydhiga hayaan ogaaday wa caraftu waxaan yaqiinsaday buu yidhi safarka dhirirkiisa duulu safarka naga dambeeyo aanu ku jirno waa safaru alaakhira dhirirkiisa walaysa macii zaad wax sahay oo watana ma jiro wa ra'aytullaaha qaadiyan waxaan ogaaday buu yidhi hadhow qiyaamaha markii dadka la keeno ilaahay baa kala xukumayo dadka walaysa macii xuja walaa man yudaaficu cani wax xujo oon ku doodayo barri qiyaama ma jirto qof ii difaacayo oo ilaahay igala hadlayo oo ii doodayana ma jiro adduunyada tan qof la arka markay arrin ku timaado qof loo yar buu qabsanayaa ama abukaatu yeelanaya wuxuu leeyahy dacwadaydii iyo wixii dembiga lahaa oo dhan baabi'i ilaahay markii lagu soo hor istaajiyo wax ku difaacayo ma jiro wax ku garab istaagayana ma jiro kuwii aad dad ugu jeclayd oo ilmahaagii adigu aad dhashay iyo walaalaha iyo aabbaha iyo hooyadaa iyo xaaskaagii waad ka cararaysaa inay wax kugu sheegtaan baadba ka yaabaysa
kuwan adduunyada aad ku faanayso oo qabiilka iyo waxaan waxba kuu tari ilmaadeerta waxba kuu tari maayaan markaad dhimato keligaa unbaa ciidda lagu gedinaya waa lagaa dhaqaaqay marka dadkii aqoonsaday adduunyada xaqiiqadeeda sidaasay ahayd adduunyada ta walaalayaal aan ka daad qaadano inta yaroo aan joogno yaana isku hilmaamin adduunyada yaana isku hilmaamin aan ka sahay qaadano aanu isticdaad samayno ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ayaanu ku farxi doonnaa barri qiyaamo haddaan hadda isticdaad samayno wey yaana ku dhumin adduunyada oona isku hilmaamin wey ilaahay subxaanahu wa tacaala hana waafajiyo dariiqa wanaagsan ridihiisana allahana siiyo wey allaahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaaca wa arina albaadila baadila warzuqna ijtinaaba allaahuma wafiqna lima tuxibuhu watarda jacalanii allahu waiyaakum miman yastamicuuna alqowl fayattabicuuna axsanah aquulu maa tasmacuun wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh